بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي السود دوادا maanta waxaan rabaa inaan inkaga sheekeeyo cuntadan healthiga ah. maasha allah tabaaraka allah. cuntadan haddaad ku quraacatid ama aad ku qadaydid labadaba waa aqbali kartaa. maasha allah tabaaraka allah. yaa maaragtay cuntadan aad iyo aad u fiican tahay. waa avocado, waa maxaad tiraahday spinach, waa ukun, waa basal, waa maxaad tiraahday waxa weeye maaragtay aan bahalka yaryar oo lafaha loogu talagalayo oo ulaha camala isbarakadhes wax saasa magaca noocaas uu leeyahay. waa sida ula camal u samaysan yahay, ma garateen? marka kusoo dhawaada sidaas dad u samaysatid oo ama qureec ama qada aad ka dhigatid oo kunna aad ku dartid. waxaan ku iri maasha allah tabaaraka allah. hadhowna hadda wixii ilaahay kuu qadaraad ku cunaysaa, rootigaagaad ku cunaysaa. maasha allah ujeedaa. iyo koobkaaga shaaha ah rinjiga ah, koob shaaha rinjiha lacabaa. shaah laskama caddeeyo, caddaysku wuxuu leeyahay maarta faad. marka ka faa'iidaysta. waxaan idin leeyahay anigu aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. aadayna u macaanta lindhanaanaad kuma joojinaysaa. waxaan ku yidhi halis dhaqaaleeya especially dadka qurbaha ku nool oon qorax kulul aan helin, dadkoodana aan la joogin, hooyooyinka especially halas nafaqeeyo. nafaqo avocadada, spinachka, maxaa tira isbaraka dhayska, aan ii sheeg maxaa ukunta, waxyaalaha noocaas oo dhan wayna aad iyo aad uga faa'iidaysataan. yaa waan idin soo bixinaa, waa inaa idin tusaan rabaa isbaraka dhayska aan ii sheegayo. kanoo kale waad jarjaraysaa, waa yaryaraynaysaa. maasha allah tabaaraka allah. waad ku daraysaa. waa sidii wuxuu u soo urayaa sida maaragtay basasha camal oo kale. kanoo kale fiir, waa kana kaan kuu sheegayo ulaha ah. waxaa la yidhaha magaciisa okay, magaci waa ka dhaca hadir kuma qorno. okay kan maasagaas kan asparagus waa kaasa asparagus ayaa la yidhaha. maasha allah tabaaraka allah. war hoy ha laisku ogaado hawshaas. fitamiino badan baa ku jira, nafaqa ku jirta. rooti ismarisa iyo intaad cuni lahayd yaa jak aad siinaysaa. waxay kugu qaadanaysaa 10 minute ayaa kusoo diyaarinaysaa. maasha allah tabaaraka allah. yaa halis nafaqeeyo. lafaha ay xanuuna, xaggan dhutina, yaa ku dhushkaadhush looma baahna. halis nafaqeeyo. hadhow marka intan aad cuntidna waxaan ku iri xabadaada fitamiinka ahayd calciumkii iyo fitamiin D-gii jalow isku sii. caadaad malehan ku iri meel ku xanuune, lugu ku xanuuni ma oo madax ku xanuuni ma oo dheg ku xanuuni mayso. marka hadda ha laga faa'iidaysto insha allah bilkariim. waan idin sheegay intaasay ka kooban tahay. isbaraka dhays iyo bahalkaas maaragtay basashaas, basal baarka aan dhahno oo dheerdheer, basashi caadiga ahayd, ukun, spinach, avocado, wax yar oo maaragtay batar yar oo marka hore aad ku dallacaysid ayaad maaragtay iyo ii sheeg aan kii kale muxuu ahaa kii kale ii sheeg aan avocadada maaragtay saliideeda yaa saliidda qumbaha ayaad ku dallacaysaa. koob shaah rinjiga xabadaada rootiga ah. maasha allah tabaaraka allah. maxaaba kaa maqan hadhowna kaniinigii ha ilaawin, fitamiin D iyo calciumka jalam. ma garat? aad iyo aad u mahadsantihiin. jazaaka allahu khayr. waxaan idinka codsanayaa channelka subscribe, share and comment. ha laga faa'iidaysto. cuntooyinka noocaasa ha la samaysto. yaa hooyooyinka weliba umulaha, kuwa uur kale, kuwaan uurka lahayn oo shaqaynayo. hooyooyinka waa la ogyahay haddana aaday u shaqeeyaan Yurub iyo America. wax nafaqa la cuna insha allah bilkariim.
si jirkiina uu xoog u yeesho fitamiino aad u heshaan maskaxdaada iyo dhiiggaaga iskula shaqeeyaan iyo dhacaamada jirkaaga ku jira shilinkii ku soo gala haddaad dirtid kaba fiican ha la xirto oo hooyooyinka shaqeyna kabaha isboortiga aad u xirta isboorti waxay kaa caawinayaan cagahaaga ayaa raaxo helaya maaragtay dhiiggaaga wareegiisa ayaa si fiican u shaqeynaya cunto fitamiin la cun waa kaasad koonfalakas xun iyo rooti xumo la ismarmarsho iyo waxaas nafaqo maahan aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah ii dhahaya